booqashada rasmiga ee madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ku joogaya wadankan ayaa waxa ay qaadan doontaa muddo 3 maalmood ayadoona madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu kulamo la qaadan doono madaxda dalkani oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha wadankani Giuseppe Conte iyo waliba madaxweynaha wadankani Sergio Mattarella. madaxda ayaa waxa ay ka wada hadli doonaan xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo waliba dawladda Talyaaniga. madaxweynaha ayaa waxa uu ka jawaabayay casumaad rasmi ah oo u diray ra'iisul wasaaraha wadankani ayadoo intuu joogo madaxweynaha wadankan Talyaanigana uu kulamo la qaadan doono jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankani. wasiirka arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad oo SNTV la hadlaya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay sidoo kale booqashadan uu madaxweynaha 3 maalmood uu ku joogi doono wadankani. madaxweynaha booqashadiisa 3 beri ah oo bilaami doonta berito oo bisha November ay 20 tahay waxa ugu soo horeeya kulan 4 galabnimo oo uu la leeyahay ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga mudane Giuseppe Conte. sidoo kaleeto madaxweynuhu waxa uu maalinta labaad ee booqashadiisa oo ah bisha 22keeda oo 1:15 daqiiqo oo qadar la leeyahay madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella. sidoo kale madaxweynuhu waxa uu 4 galabnimo isla maalinta labaad ee booqashadiisa oo ah 21 bisha oo la kulmi doona jaaliyada Soomaaliyeed u timid inay aragto oo soo dhaweyso. sidoo kale madaxweynuhu maalinta ugu dambeysa booqashadiisa ah 22 bisha waxa uu la kulmi doonaa subaxnimada maalintaas gudoomiyaha aqalka sare ee Talyaaniga gabadha la yiraahdo Maria Elisabetta. isla galabta maalintaas bisha 22 tahay madaxweynuhu waxa uu la kulmi doonaa gudoomiyaha aqalka hoose mudane Roberto Fico halkaas oo madaxweynuhu uu ku soo gabagabeyn doono booqashadiisa rasmiga ah 3 maalmood qaadan doonta insha Allah ee uu ku joogo dalka Talyaaniga. ujeedada rasmiga ah ee booqashada madaxweynuhu waxa weeye madaxweynaha oo ka jawaabayay martiqaad uga yimid ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga taasoo ujeedadiisu tahay in la xoojiyo xiriirka Soomaaliya iyo Talyaaniga ka dhaxeeya taariikhiga ah oo kor loo qaado wax wada qabsiga iyo saaxiibnimada labada dal iyo labada dad Soomaaliya iyo Talyaaniga.